السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وويلكيني وولالكيني the family empire boom boom in the house بغرتوية in the building ولا الله نلشة شخصيات كقلبك وناكسن انت سماء وصاحبك صدر قوضة اي سمانتك بوعدو السلام اذا بصوا بالله ايانا وضع ايدين سومري انا صدرك ايدين كالسلام وحانس السوا شكوين سأذا ليك قو سبسكرايب ايسار لايك ايلوين ودحالك كلي انكو قول لي كومنتيغنا ku dhaxrafo waxa aragti isoo qor waayo waa idin xiisay white house kana waa idin xiisay sadriga laabta ku taalin asxaabtayda taa markaa ka gudbo waxa jirta arin labadan bari social media aad u dhaxrafanayo aad loo wadwado aad loo boonbooninayo arinkan wuxuu ku saabsan yahay walaalkayga Kamaal iyo marwadiisa sidoo kale dhalinyaro badan oo youtuber ah ayaan arkay reaction ka soo bixinay laakiin aniga fadhiga waxaan ka soo kaca white house kan aan ka soo qayliya sheekada markii la kari waayo dhinac in loo ridana halkeeda la waayo horta aniga aqliyadeydan iyo maskaxda Ilaahay isiyay xayawaankana iga karaamo yeelay u dhahay bini'aadanka waa karaamay ana xikmadda ku hadlay waxaan leeyahay arinka 70% waxaan isleeyahay yani adduunku waxa jiro freedom of opinion qofka aragtidiisa inuu xor u yahay arinkan ama arinkan hadda la wadoodo waxaan isleeyahay totally waa prank laakiin prankigaas hadduu sax noqdo ceebta adduunka u weyneed waxay ku dhacaysaa Kamaal marwadiisa iyo dhalinyartii bahashan isku dawriday xaqiiqda marka laga hadlo waayo indharunay ku ooyaan ilmana habartood simple waxaan isku dayaa inaad maskaxdaada ii furtid aqligaadan oo ila socdo bahasha saan wax u wadana 100% aad ila fahantaan hal iyo labo anoo cadeymo badan aan ku cadeynaya arinkan inay dhanka brankiga ay u badan tahay aysan xaqiiq la isku haleyn kar aysan ahayn ay tahay sheekil isla ogyahay 70% waxa cadeyn kuugu filan dhowr qodob anoo soo qaadanaya qodobka ugu horeeya bal waxaad ila daawataa Kamaal aabiisa aabaha lagu sheegay videogu soo duubay inaad ila daawataan. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh walaalkay Cabdisalaam Ali Xaashi qofka halkan ka salaamay waa Cabdixamiid Muumin walaalkay waa maqlay ajalada videoga waa fiirsaday runtii aadan ugu xumahay gabadhi hani adiga qabtidaad ii sheegtay oo naag la qabay ay tahay oo caruurna ay ku hayso shan Allah barakeey ma sha Allah marka gabadhan wiilkayga oo ii keen waxay ugu soo sheekaysay iidan afkeeda ii sheegtay inaan la qabin oo caruurna ay salahaan Kamaal aabiisa wuxuu video u duubay Cabdisalaam maxaa ku kalifay Kamaal aabiisa inuu video duubo una u duubo Cabdisalaam waa kuma ma aragteen muuqaalkiisa ma aragteen asoo lehaniya qaba ma aragteen asoo video soo duubayo lehaniya qaba ma aragteen caruurta shanta caruur u sheegay Cabdisalaam ana dhalay haniyana ii dhashay caruurta indhaha ma saarteen ya haddana indhaha ma saarteen ninkii hani qabi jiray maya maxaa ku kalifay Kamaal aabiisa inuu video duubo waxaan arkay clip yar ay soo duubeen real enjoy dhalinyartan Malaysia ku nool oo ay leeyihiin waxaa jirta sabab ku kaliftay Kamaal aabiisa inuu video duubo title-kay ka dhigeen video ilaa dhamaad ilaa bilow hal sabab ay ku cadeeyeen sababta ku kaliftay Kamaal aabiisa inuu video duubo hal sabab ma keenin sheekada video lagu dhameeyay maxaa kalifay Kamaal aabiisa inuu video duubo una u diro ninkii sheegtay inuu hani qabi jiray sabab ma jirto walaalkay waa maqlay ajalada videoga waa fiirsaday runtii aadan ugu xumahay walaalkay waa maqlay ajalada videoga waa fiirsaday runtii aadan ugu xumahay waa maxay ajalada Kamaal aabiisa uu sheegay uu asaga kaliya arkin anaga oo dhan aanan arkin waayo sir markii la kashifayo waa in bulshada la horkeena ajalada maxay tahay ajalad aroos dhaxmaray Cabdisalaam iyo Hanimiya ajalada Kamaal aabiisa murugtu ku abuurtay sababtay inuu video duubo ajalad ma jirto Cabdisalaam waa ruuxan yaa lama arkin shanta caruur waxa waay iyagana waa ilmo jini waay wax arkay male ma fahanti odayaasha anaga odayaal waa naqaleen waalidiin waa qabnaa xitaa qaarkood waxa ku adag sida telefoonka loo diro qaarkood waxa ku adag xataa sida cod loo duubo sababta dhalisin video u duubo maxaa waay markaata lagu haystaa ma muuqaal anshaxuma Kamaal laga qabtayo muuqaalkaas anshaxumada bulshada la soo hordhiga hadii kale muuqaal soo duub ma lahay horta sababta ina ogaano sababta lama yaqaan
ninka shanta caruur dhalay lama yaqaano, caruurta lama hayo. marka waxaani hal xaba kama jiro, waa aragtidayda. Okay, waxaa kaloo kuu soo haray, waxaan arkay kilib yar uu duubay laakaha saan jeclaa waa wiil Yurub ku nool, reer leh, cod sir ah, laba cod oo sir ah oo private ah, laakaho Sweden ku nool. maxaa gaarsiiyey aniga? marka waxaan isleeyahay reaction ka soo bixi waayo, marka simple waayo ila daawda hal iyo labo muuqaalka aanan ku fogaanin. waa adag tahay walaal. aabbaha waa kula hadlay, hooyadana waa tan way hadlaysaa, waxay la hadlaysaa hani gabadheeda, waxay leedahay hooyo la hadalo, waxaad tidhaahdaa sawirka wiilkayga ha ka qaado. marka bal intaa yar baan ku darayaa, ma raba xaajadoo dhan inaan say tahay u wada qeexo ama aan soo wada bandhigo wixii cadayma aan hayo oo dhan ma doonayo. laakiin saaxiib tala ahaan weli waa talo iyo walaalnimo iyo asxaan iyo saaxiibtinimo iyo hani oo dee walaashay waan jeclahay ka saar saaxiib, waa ku baryaa bal intaan ila dhegeysta keliya. السلام عليكم. نجمة يورا سيتا حالتا ورير ما شاء الله وفي عنها أنا كان الحمد لله. واسعبك هو يدا وحصارا كمال يساب الكوضة لهذا الهدجسو أنا قد جيس مربنا أنا وحنا بإنه لما ربنا أولو تتمية لباب إيو أنا قد جيسو شاك ولا عليه إن شاء الله. السلام عليكم. waxaa kaloo ku cadaynaa inay arrintaani sheekil isla ogyahay ay tahay. feeri laakaha maxaa ogeysiiyey kamaal hooyadiisa iyo najmo waxa dhex maray? maxaa ogeysiiyey? waayo arrintan arrin private ah, cod whatsapp lagu duubo waaye. maxaa ogeysiiyey? siduu ku ogaaday? teeda kale laakaha ka soo hadlay, boodhariya ka soo hadlay, axmed buskuda ka soo hadlay, ninka xaaska laga dhacayo shanta caruur dhalay waa ay usoo fariisin waayeen youtube-kooda. ilaan kulligooda Sweden ay ku wada nool yihiin mogta, waa youtube-ka loo soo fariisin waaye. waa caruurta iyagoo le bal 5 caruur ciyaar maaha, kan ugu yar wuxuu gaari karaa 6 sano ama 7 sano. ma hooyadooda aysan garanayn inay meesha soo fariisiyaan? hooyadeena waa naga maqan tahay, waa hani ma ahan ama way tahay, labadaba maxay u dhiiwaay? odayga maxaa loo soo fariisin waay? marka taa haddana ku cadaynaysa in sheekada ay tahay hal xaba ka jiro. haddana aniga afcishoodana ma leeyi, xigmad wax lagu qariyayna ma leeyi. waayo youtube haddaa arsaaqadiisa 100% nolosheeda ku maareyn lahaa, anigan dhinacan ka soo gali lahaa, ma sheeko kale alifa lahay. laakiin youtube wuxuu u baahan yahay hal abuur iyo in bulshada lamada daaliyo. laakiin been aan u jeedno arsaaqadii laga raadinin. waxaa kaloo la yaab leh, aan la yaabanahay, waxaa kaloo jira cod uu private ahaan u duubay kamaal aabihiisa, isla laakihii hadda codka hooyada banaanka soo dhigay ayaa haddana codkaana banaanka soo dhigay. bal ila daawda doonaa xaaladdu waa adag tahay, waa culus tahay, bal kana aynu dhegeysano. intaad ii dhihin waxyaabahan caawa aan furka isugu tuurnay, waryaa waxaan ka bixin fiidiyoyaashan, waxaase dhaysa ka bixi. marka insha allah waa u sheegaa, waa laga bixi asagana ilaahay warkiisi inuu kii qaata allah ka dhigo. ilma caasiya jooga, caasi waalidiin ah, laakiin ani caasi ma dhalin mana dhalayi. insha allah waa hagaagaysaa, waa ay sharafta allah ku sharfo. waxaa sheegaysana waa wax nin walba rag ee ka damqaayo. dad bay siday, laakiin iyadoo madaxeeda ugu hooraa meelay ku harsatay weynaysaa. haddii iyada masaakil samaysa wiilkay gartaa inuu kula gargarato, laakiin ma dhacayso. iyadoo ku koomaayo insha allah. wabillahi tawfiiq walaalkay. aniga hadda sheekh markaa tagda kusoo wadaciynaa, waxaana ka saar waa cabdisalaan iyo kamaal aabihiisa waxa dhex maray codod ay isku duubeen. laakaha yaa ogeysiiyey, yaa markuu duway muxuu dhahay laakaw reaction ka soo bixi cod cabdisalaan duubaya kamaal aabihiisa ay mu dhahay. marka waa sheeko qiyaali ah. war ragga ama bini aadanka ama bulshadana daawanaya mise dumarka la daawanaya qalbigooda falaad yaa laga dhigay, waa la bariisaya youtube. laakiin hal abuur iyo xeelad ayaa lagu bariisaya. hal mid aan leeyahay, ninka cabdisalaan la dhahay oo sheegtay 5 caruur inay hani u dhashay, 5 caruur nin xaas tusaale ana iska soo qabana, xaas 5 caruur ii dhashay oo ilmahaygii hooyadooda ay tahay, miyaa nin rag korkayga ku aroosi kara? ilaa haddaan ku noolahay Maraykan, haddaanan diyaarad heli karin xataa waa soo lugeyn lahay. maxaaskayga 5 caruur dhashay yaa korkayga lagu aroosa, damiirkayga u dulqaadana. markaasaan nolosheeda social media keena miya? anoo burus iyo baangad heli kara maxaa ku soo koobay nolosheeda social media? labadooda waa isaag dhigi lahay. ya 4 bilood ka hor aroos dhacay, maxaa sababay hadda inaad soo hadashid? kooma maa ku jirtay cabdisalaanow? dhagool ma aheed? ma indhoola aheed? social media ma daawatid miya?
ما حتى هذا السوشيال ميديا دائما ما تلقى أيام موجن هل إن تلقى هذا أسود هذا اللي وولالك يودي شيء كلا إذن ديارنا بل عبد السلام كميل جار ماشي نو كينا يا عبد السلام من تركي سك السعودية كميل جار نو كينا سيد برانكي وخرح بدنا لكن لحن كان قيالي شيء كذا قيالي أنا قلت يا waxyaabaha ugu yaabka badanaa waxay tahay adiga idaawana iska soo qaad xaaskaada in korkaada lagu arooso 4 bilood kadib ma soo naaxay adig kooma ku jirta ya se korkaada loogu arooso damiirkii aw dadnimadii aw ya ma kula tahay hooyo Soomaaliyeed oo shaq caruur dhashay inay nin daraadiisa adiga hooyo tahay maanta idaawana nin daraadiisa inay awlaadeeda u inkirees balaa ya awlaadeeda mu inkirees shaq caruureed oo dhalay may marka waxaana la iska dhaaf kamaalo aniga nin walaalkay tahay social media koral iska kasa contact fi amali kamaal arintan hadaa dhahay prank waay eebta ugu weyneed nara ku dhici doonto adiga xaaskaada ku dhacaysa iyo inta kula wada barnaamijka waay xaaskaada ina prank kaga dhigtid ya shan caruur ay soo gashay shan caruur ay soo dhashay nin kale ba ila qabi jiri ya xaaskaada bulshada horteeda waxa ku tilmaamtay براnkigii zinada way xaaskaada waxa ku tilmaantay inuu nin kale kula qabi jiro sharaf ka dhac gabadha iyo gabdhaha Soomaaliyeed u geysato in runay ku ooyaan ilmana abarto hadii sheekadan ay baranki noqoto waxa baranki ma gabadha tolay leedahay daday ka dhalatay ya iyadana sharafteeda dhaawacday adigana sharaftaada dhaawacday waayo marwadaada xalaasha ah ayaa baranki kaga dhigtay laba nin isla guursatay ragga bahashan la wadana war عبد السلام كميل جار حتى نو كان عبد السلام كان لما أقول شنطة عروض لما أقول وضيع كمال علي وحكوا كلف إنه فيديو قصدو ما كمال وقاونا لا يا ليري يا ما ويل كذا الدلا أما فيديو ضو ولا ده شيء كذا نوع عدايا في الكوال عدايا هديك القيالي قال نقول تجا يا وح إلي أبلا وأغلية ده إذا نقلين مناك إذا كركي ينتلقوا عروسه شن بلاد مخاطك نقولنا ما العيس ما قاعد مسوا على ده حاسك هذا كمال فيلم لسه جلوسه فيلم هوليوود يا فيلم هوليوود ترك كسو جلوسه داو فيلم مركو دماده gabadha lagu soo cilaama lagu dhaadi waxaan la yaabanahay kala gabadha inay boodari iyo Ahmed Buskut ay garatay inay Sweden ku nool yihiin Cabdisalaam ay garan ways meel uu ku nool yahay xitaa waan aqaana xataa noo quur ways ya marka waxaan waaqiyaali gabadha ilaa hadana af cad abay ruux Sweden ku nool هذا بسويدن وأسعة روح سويدن كنا الأدريس كيس لما واين سويدن وصومالي ذا كوبان وهذا إيرو كوبان نوع عدي وعن نوع عدي سا أبا يقف سويدن كنا الأدريس كيس لما واين عبد السلام كان نوع عدي هذا كلا جبد أبا يجبد وحن نوع عدي سا وحن نوع شيء تين ويل البدن أي كوشو كان سنجرين ها جبر أوتاي ناكون يكون مساكوي كلا بعد كوجا كمال النقد ويلاش يكون شو كان سنجر ميت كم إذا ركعت كوجا يستدوي حتى نوع عدي أنا ولا لا هذا نهاري هيلي هو يأدن يأفب يبرز بو كل تاجنا أنا كاد عينين ميت ركعت كوجا يست فاميلي قاعد يفرح هذا أربوشة يدوي حتى نوع شيء ويلاش شو كان سنجر وكم دياي لكن أنا خيال أنا أقول وانقم جري كلها هاي حتى مرة دينين أدرس كيس مرة دينين نلشي صدبت عصوم أوجانين إنه يقبل جري إن كلا سوادحة وما كلا عدينا أبا أنا لا إيمانا ولا شيء نتعمل يا سيدا كلنا أحمد بسكت يوفد جيس يلا كا واحد ودنا هذيك أنا واحد عدايا الكيف ولا عدايا لكن ذاتك إذن داونا يحكسوا قادنا حيوان ويا حيوانك وحرك وضاه حاسكي سوق حرك وضاه حكمة كلا ملا أنا لكن حكمة الآمنين إلهي وعنوق أماني قرادا وحكو كلا صارنا حكمة وحكو فهنا أركتيا وحكو عبرنا مركا أنا يا فيلمكي أناون وكال The Passenger ميلو كبل هذا ميلو كنا على الجريرين هنا ولا إيماننا في زواج لكن حكمة الأجرة هذه Peace and Love هذه أنا فكر كذا كومنتي وكعبر